بسم الله الرحمن الرحيم. وهرين اسمها مدحوينها جمهورية أهنا قدوميها برلمانك بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري اللي أنا برلمانك كله كان يقصوا غير قلي لما أنا مثل كله كان يوقع الزومية أو كلا سعوداء والرضا شغالها كوزون هذا برامج كان قدومك برلمانك والرضا شغالها كبرتقالي سيء أركتذو ذا يوحى قوان ووجاده كسمة مدحوينها قدوميها برلمانك سيء مركو وهر سينو وشرحه برنامج كان يوحى وجدي سؤال هاي قابك أصلا مساعد كبرنامج وحنا قندنا مركو قدوميها حد كذب يعني ذيك اللي كنا وصل الله بنا مركا دتك قرن إليسكو ذا السوق قدبي أنا هلك نغيرنا قفل بمركاسي أركتي السؤال وحقوقه قدوميها وقصو قدبيه أيضا عن وقت كانوا كل حساب تمينه أنت أنا مركز ماشي شوي استكتر من قدوميه وهرب كسره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين. ولا ليال مواطنين الصوماليين عدد شغالها دمان والسلامتين. سلام كبعدي وحال إذن كسر دوينيا مقع قولها شعبك إن كلن كنا معنتا أنا سكوي درسنا آراء يوحي أو أن أفضل بمواطن أهان شغال أهان وكتري كريو هرمارينتا إيو يعني هرووديدا أمورها ذلك يسيري لوجد بحلها سهل معنتا وكسوي هاي لونه بدلها صح كثير ونكسر هالكذي حسلوني يهرمر يشقو لو قاري كلن كنا معنتا ومن تاريخي من التاريخ أويان أو وقت مناسب أنا إيمانية روان وعن هدير تنكو جرنا إن الديارين برنامج كي كالفرق اللبات أي برلمانك كالفرق اللبات وكدوية هي كالفرق هوري ويو وحوقليا حق الشرع الديجنتي نبتا هيد وقد بدونا وأرهن آد مرتا مهم وأدلك إيهور مرنتيسا إيو قرشها لغو هولغلايو سنة كوني سغال بغولي سدحي توبان سادرادين ومهم إن أركتلا شعبيغا لأوغادو ما دام قولها شعبيغا كودغيس ونقضي إنو أحادو عدكي شعبيغا وحونا كجرا هديرتان لبعض لنا أيكو هوليهين إن ديغاندي إيو أي سو حوران سدان دارينكا شعبيغا سادرادين با قدون كان وحو أسغانا أجعل هذا إنو إذن لكلمو إذن كو لفدبرتي dhaqaalaha dalka iyo horumarkiisa mustaqbalka Soomaaliyeed iyo ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ahmiyad gaar ah ay isu leeyihiin oo isna saameyn karaan waayo shaqaalaha waxa weeyaan buddiga aasaaska u ah horumarinta dhaqaalaha cudurda shaqaalaha Soomaaliyeed oo la abaabulo oo meesha u socdaan la arko ay arki karaan meesha ay geyn karaan dalka dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa ay geyn karaan qorshe wanaagsan ay u baahan yahay barlamaankana waxa weeyaan kii u budligi lahaa bilowga asaga ana waxa ay ka bilaabataa dastuurka waxaan aad u jeclahay shaqaalaha ururada shaqaalaha Soomaaliyeed oo dhan inay dastuurka oo federaalka ah hadeertan inoo yaala si ku meel gaar ah loo ansixiyay dhawaana ay ku noqon doonto in marta dib u eegis ugu noqon doono inaad haddeer tan sii bilowdaan inaad daristaan dasaatiirtii Soomaaliya u soo jiray oo dhan ka soo bilowkii oo 49 la dejiyay kii 60 kii 79 kii 90 kii ahdigii oo ku meel gaarka ahaa iyo midka haddeer tan inoo dugsan dastuur ahaan dhamaantooda waxa ku jira qodob aan marna maqnaanin qodob baa mar walba ku jira aan marna maqnaanin qodobkaas oo ah in qofka shaqaalaha ah qofka muwaadinka ah in uu xaq u leeyahay una madax bannaan yahay in uu samaysan karo urur shaqaale oo danihiisa ku ilaasho danaha dalkiisana uu markaa uu ku fuliyo xuquuqdiisa ilaashado isla mar ahaantii dalkan uu daneeyo horumarkiisa qodobada ayaga ah dastuurkan hadda cusub waa la yara faahfaahiyay waxaan jeclahay in aad fiiro gaara u yeelataan qodobka 23 24 iyo 25 ee dastuurka inaad fiiro gaara u yeelataan wuxuu xaq u siinayaa qofka muwaadinka Soomaaliyeed
in uu yani mihnadii uu doono shaqadii uu doono xirfadii uu doono oo uu isleeyahay taasaan wax ka qaban karaa in uu isaga u madax bannaan yahay inuu xusho waajib markaa waxay ku samaynaysaa xukuumadda ama dowladda guud ahaan in ay u diyaariso macaahidkii iyo meelihii farsamada iyo xirfadaha laga baranayay iyo culumtii oo lagu shaqaysan lahaa in xaqaasi ama xaqaas insaaniga ah ay u diyaariso duruufihii ay ku fulin lahaydna ay diyaariso saa daraaddeed waa lagama maarmaan in wada tashi ballaaran fursad loo siiyo ururada shaqaalaha ay ka doodaan ka tala bixiyaan dastuurka Soomaaliyeed marka dib u eegista uu sameeyo baarlamaanka in si ballaaran loogala tashto oo iyagana marka ay si lilaahi ah oo aragtidooda ay ugu dhafaan waayo dastuurka kani waxa loo sameeyaa waa idinka waxa loo sameeyaa waa jiilalka soo socda waxa loo sameeyaa waxa weeyaan sidii midnimada dalka iyo qarannimadiisa loo ilaalin lahaa waxa loo sameeyaa waxa weeyaan in dhaqaalaha isku filaasho la gaaro in laga baxo ku xirnaashada ama ku xirnaashada mar walba lagu xiran yahay kaalmooyinka dibadda ee laakiin aan ku dadaalno in annaga aan isku filaasho aan u gaarno dastuurkaasi waxaan jeclahay usbuucyo ka bacdi dhowr usbuuc ka bacdi bisha maarso dhexdeeda haddii aan yiraahdo in aan furno ka wada hadalkii dastuurka federaalka ahaa in wada hadalkiisu uu bilaawdo ayaan aad u jeclahay mar alla markii kala fadhiga uu furmo labaad oo aan filayo inuu furmayo 2 maarso wixii ka dambeeyay bisha maarso dhexdeeda baarlamaanku wuxuu jecel yahay inuu furo ka wada hadalkii dib u eegistii dastuurka Soomaaliyeed saa daraaddeed inaad si diyaar garowdaan haddaba daraasadii aad bilowdaan waa lagama maarmaan xuquuqda shaqaalaha Soomaaliyeed ama xuquuqda shaqaaqiga aan ilaahdo ma aha mid hadda oo dastuurka iyo koodshidalada xeerka shaqada ay ku bilowday ma aha dhaqan ayaa jiray oo weligeeda soo jireen ah oo Soomaalida ay lahayd Soomaalida badanaa markii aan intaan la gaarin casrigan oo hadda aan ku jirno waxay ahaayeen beeraley xoololey kalluumaysato farsamo yaqaano birtume kabatole ila aakhiri ijaar baa jiray مثلا haddaan ka soo qaadno xoololeyda qowsaar waxa la yiraahdaa jiray qowsaarka markii intaasoo sano uu ku jiro waxa lagu heshiinayay qaalin buu leeyahay taa waxa ahayd xiriirkii shaqada oo isu shaqaynta shaqaale loo shaqeeyay waa arrin soo jirtay haddii beeraleyda aad fiirisaan eri af Soomaaliya ku jira oo beeraleyda ka yimid waa eriga la yiraahdo tacab goosato tacabka la gooynayo waxa weeyaan ushaan iifal markaad fasho intaasaad leedahay marka waxa weeyaan xuquuqdaas marta la isku leeyahay weligeeda waa jiray xadiiska rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiraahdaa haddii qofka shaqaalaha uu ku shaqeeyo intuusan dhididkiisii qalalin waa in mushaaradiisu helaa marka waxa weeyaan xuquuqdaas waa mid islaami ah mid dhaqan ah mid soo jireen ah waa xuquuq oo aadamiga uu leeyahay oo isku leeyahay in lagu wada shaqeysto ilaalinteedana waa waajib oo qof kasta saaran inuu ilaaliyo loo shaqeeyaa waa ku waajib arrimaha kale aan doonayo inaad hoosta ka xariiqo waxay tahay xeerka shaqada badanaa ayaamaha waxaan maqlaa shaqadii shaqaalaha wax shaqadii shaqaalaha la yiraahdo ma jirto conceptiga aan fahamno yani fikradda aan fahamno markii aad tiraahdo shaqada micnaheedu waa 3 geesood waa 3 gees haddaba shaqada tiraahdo 3 arrin baa asla markii soo galaysa waxa weeye shaqaale loo shaqeeyo iyo xukuumad 3 geesood baa caalamka dhan had saas ugu dhaqmo waayo loo shaqeeyaha wuxuu u baahan yahay shaqaalahan loo shaqeeyo u baahan yahay labadoodna waxay u baahan yihiin xukuumad waa oo magiciisi waa qaybtii saddexaad oo ka banaan ah xeerkii iyo nidaamkii dejinayso ilaalinaysa marka wax shaqadii shaqaalaha la yiraahdo majraada kulligood waxa la yiraahdaa shaqada wasaaradda shaqada haddaad maqasho saddexdaas ay ku howlsan arrimaha bulshada soo raacay waa mid kale laakiin waxa weeye shaqada waxaan maqlaa shaqada iyo shaqaalaha hatta qaar la qoray baa jiro qaanuun lagu qoray waxaasi waa wax kama jiraan waa shaqada marka tiraahdo conceptiga waxa weeye 3 gees ayaa isku dhafan saa daraaddeed arrimaha kale laga maarmaanka ah inaad daraasad gaar ah u yeelataan waxa weeye xeerka iyo nidaamka shaqada u degsan dalka Soomaaliyeed idinkoo ka duulay dhowrkii qodob aan idin sheegay dastuurka ku xusan idinkoo ka duulay xiriirada
يعني go'aanada caalamiga ah sida ururka shaqaalaha adduunka uu gaaray ururka shaqaalaha carabta uu gaaray ururka shaqaalaha afrikaanka uu gaaray inaad daristaan aad ka fiirisaan maxaa u habboon maanta xaaladda Soomaaliyeed ay jirto oo aad ku sameyn kartaa arrin kale aan rabo inaan ku baraarujiyo waxa weeyaan in aad daraasad u samaysaan laba arrimood contractiga ama heshiiska qofka shaqaaliga ah iyo loo shaqeeyo ay dhigaan nidaamka loo sameeyo waa mar labaad oo aad muhiim u ah waxa weeyaan gorgortanka guud ama waxa la yiraahdaa gorgortanka wadareed ama af Ingiriiska lagu yiraahdo collective agreement waa gorgortanka wadareed waa cilmi u baahan in aad urur kastoo idin ka mid ah oo u yeesho qolo ku takhasustay oo ka difaacda oo lawyer waxay noqon kara marta dadku qayda daaray qaanuunka shaqada inaad yeelataan waa lagama maarmaan gorgortan guud aad samaysaan gorgortanka guud wuxuu tarayaa in marta nidaam guud oo shaqaalaha Soomaaliyeed oo dhan ay isku wada daysanayaan ha noqoto heerka mushaarada ha noqoto fasaxyada ha noqoto haweeneyda shaqooyinka haweenka loo diri karo iyo kuwa aan loo diri karin ha noqoto shaqooyinka oo caruurta aan loo diri karin ka difaacooda xaamilada waxa ay xuquuq yeelanaysaa naas nuujinta maxay yeelanaysaa ilaa aakhiri يعني حق أو حتى وحكروا جرا دراسات لو مرمى إن مرتا أو أفيري يلتان حق عافيمات جوابها له شقية جوابها شقة وحاسوبته بكرتا إن مرتا لباتوين أي كسر جاري كرت شغالة مكة مرول بوا إن له مريا جوابت شغالة أو أي كشقية يعني لكن مرمى وح إذا كنت المعمى يو إن جرجرتك إن جرجرتك وضريتك oo dhexmaraya shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha waxay muhiim u tahay tababarada qofka shaqaalaha ah ma aha kaliya meeshii uu maalinta shaqada ka bilaabo inuu joogo waa mar walba xirfadiisa caalam waxaan ku noolnahay oo teknolojiyada maalin walba maalinta kale ka dambaysa ay ka horumarsan tahay telefoonka aad haystaa ka mid ah maalin ka bacdi waxa uu noqonaa bil ka bacdi mid kale soo baxay kii kale adoo kii baranba ku kala soo baxay marka teknolojiyada saa isu badbedelayso daraadeed waa lagama maarmaan in qofka shaqaalaha ah mar walba tababar isdaba joog ah oo lagu horumarinayo mihnadiisa iyo xirfadiisa iyo aqoontiisa inay meeshii jirto gorgortanka guud iyo arrimaha aan ka hadlayno ma aha magaciisi isku buuqid iyo waxa loo baahan yahay asluub wanaagsan ilbaxnimada ku dhisan qaanuunka ilaalinayso si maragta dimuqraadi ah oo dastuuri ah oo looga wada doodo ayay u baahan tahay marka barlamaan ahaan waxaa naga go'an in aan dadweynaha si ballaaran u dhageysano dareenkooda aan helno dareenka dadweynaha uu qabo ka bacdi aan u tarjumno shuruuc lagu dhaqo oo loo dejiyo shuruuc oo ka tarjumaysa dareenkaasi si looga baxay arrimaha shaqaalaha haddii la yiraahdo waa magaciisi lafteeda waxaa ka mid ah shaqaalaha ururada shaqaalaha ku soo barbaaray markii dambana waxaan ka shaqeynay sanooyin badan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada arrimaha iyo ururada bulshada ayaa ku soo jiri jiray ururadii hore u jiray waxay ku shaqeyn jireen haddii la ku rooyahay mabaadi'da hanti wadaagga guddoonka dhexe waxa la yiraahdo laakiin waa ka baxnay midaasi waxaan ku jirnaa mid dimuqraadi ah loo madax bannaan yahay saa daraadeed wacyiga qofka shaqaaliga ah waxaa loo baahan yahay in uu sare u qaado waayo haddii wacyigiisa u hooseeyo waxyaalo badan baa ayuu haleyn karaa sidoo kale loo shaqeeya dhaqaalaha uu leeyahay ammaanu nagu yahay shaqaale ahaan inaan ilaalino xoolihiisa iyo laakiin annagana waa inaan xaqeena ka helnaa ilaa yani xaqeena oo aan mid aan la dulsi aan jirin arrimaha hadda dalka ka maqan waxaa ka mid ah oo haddii la yidhaahdo la gaari doono laakiin aad halgankiina ku dartaan loo baxay waxaa weeyaan badbaadada shaqaalaha sidee loo badbaadiyaa ururadii jiri yani hay-adihii jiri jiray waxaa jirtay urur aan dhihina hay-ad yidhaahdo hay-ad maxaa lahay wakaaladda badbaadada shaqaalaha cashuurta laga jarayo qofka shaqaalaha waxaa ka mid ahaa qayb ka mid ah 5% inay helaan umaleynaa laga jarayo waxay ahayd badbaadadiisa haddii dhaawac ka soo gaaro ama waxyaabo ku dhacaan inta uu fadhiyo in uu dakhligiisii uusan isdhimin
وهيئة مرتا أورورينيسي إن مرتا أي بحسو مشاردي سي وحي فاميلي يسوكم نولا مركتا أوكا لفتر كده إن فيولين ويانا تاويان أن نقول براروجستان أنك وسيدا الدونيسان مركا أن رادينو ولا مارمان فركما قدنا ما أنت وحن جوجنا سيدي كوني سجال بقولكي أو يعني إيميل أو حبك يجيب دبلور ديساير هسي شيء وحن آمن سنة يقفهم شروع الصومالية أطالة يعني دايل سنة وايو وشروع سوجرتي أما كسر ديسنتي ترتيب إلا بقول سنة كدوات شروع لا تعرف هاي حتى يكسر بالله كنتم كي إلا ما أنت مش أنجو مش شرع بشرعي ولا سوق بدلي ولا سوق بدلي ولا سوق هذا ولا سوق ذي ما أنت مش وجو مثلا واحد كسوق هذا نظام كقرصور أوردينامنت جوديسياري مدة إلى لا قرمو صوب بالعرض سجالي أفرتن كي وصوب بالعرض وصوب السعودي متوجه كل شهر حتى لازم حركة عقابته حركة مدنية يعني حبراعة حركة مدنية حركة معمق كل جود وحيصاب بالحدين كونتوناتي لكن ماشي هذا ماشي ما أنت إجوا وحاول بقول جربي كلوي مركب حلو بهاي شروع داسي ما داقت إن لقى طوره أيجي على سوق هذا كرك هذا لو لسه وضعي ما أنت جرا أما ظروفها ما أنت جرا يلا وافجنا بريتكو أنا كان لحد جيل كسوس على سلاس أكل ويكوسي دولس يعني سيد معلم كأكله أرض يجي سمركو وحبره السجوا الدقوي كربي سوكو استعجايو وكبدينيا معلنكيسي معلنك wanaagsan waxa weeye macallinka ardaygiisa uu diyaarinayo in uu ka sii badsho meesha uu joogo waay casriga uu galay casriga macallinka ma aha casriga oo asaga loo uumay ilaahay oo uumay waxa weeye casri oo macallinka uu dhimanayo ardayga uu harayo cilmiga uu dhaafay marka duruufaha kale iyo waxa uu la kulmay uu ku sii baran shuruucdana waa sidaas waa la soo bilaabay way soo socotay mesela sharciga ugu horeeyay ama trade unions ay dagaal ku bilaabeen Soomaaliya waxay ahayd wax dad badan dadka beeraleyda oo reer beeraley ma joogaano beeraleyda ka saar mesela taariikhda Soomaaliya dad fiiriso waxa jirta taariikh liidaad tanki la saari jiray beeraha lagu fali jiray Talyaaniga ku falay xoog ah tankaas oo yani dadka xoog force labor liidaad ayuu kacdoonka shaqaalaha ka bilaawday Soomaaliya ayagoo diidaya tankaasi in mar dadka xoog lagu saaro oo kolonyadii waagi oo dalka uu isticmaal ku jiray marka saad daraadad waxa weeyaan inaan mar walba u feejignaano yani shuruucdaasi aan loo baahan yahay haddii aan ka niraano waa ka hadlaynaa maanta oo dhan baan wadi karnaa laakiin waxaan u daynayaa in aad idinkana wax nagu kordhisaan ilaa ujeedada aan kulanay maanta waxa weeye inaan idin dhegaysano ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay raqam waaxid in aad dastuurka cusub oo hadda aanu haysana federaalka ah gees ilaa gees aad akhrisaan waayo mid aan idin saameynayn qodobada qaarkood waxay idin saameynayaan muwaadin ahaan muwaadin Soomaaliyeed qodobada kale qaarkood waxay ku saameynayaan xag siyaaso qaar kale waxay ku saameynayaan xag dhaqaale qaar kale waxay ku saameynayaan xag bulsho qaar kale waxay ku saameynayaan xag ammaankaada iyo nabadgelyadaada qaar kale waxay ku saameynayaan gobonnimadaada oo dalka iyo midnimadaada ay saameynayaan qaarna si gaar ay ku taabanaysaa waa mihnadaada iyo meeshii martaa aad quudkaaga ka soo saaranaysa in martaa uu jiro marka inaan ku dadaalno sidii martaa aan uga maarmi lahayn tuugsi iyo kaashi noocaasi aan isku filaan lahayn ilaan dadkii hore waxay yidhahdeen man laa yamliku quutuhu laa yamliku qaraaro qof aan quudkiisa soo isaga aan gacanta ugu jirin oo soo saaranaya qaraar uu leeyahayna ma jiro go'aan uu leeyahay ma jiro kii ku quudinaya ku amraya sidaa daraaddeed inaan gaarno hadda waa dhibaatada waa jirtaa isu sabar waa loo baahan yahay waxaa suurtooda marar qaarkood mushaarada bil lagaa bootiyey bil lagaa daahiyo ama mushaar ma jiro la yidhahdo xoogaa bal intaan kusii nolo intaan ka gaarayno yacni waa laga baxayaa tan waxaa waa isu sabarkii waqtigii isu sabarka ayaan ku jirnaa waxaan ku jirnaa waqtigii in martaa aan bogsoon lahayn oo bogsasho aan galno ayaan u baahannahay dhibaatooyinkiina soo gaaray 20 iyo dhowrka sannadood inaan ka bogsoonno oo aan iscafino daran isu cafino oo markaa aan hor u fiirino aan ka fakarno ma aha kaliya annaka sidee baan haddii alla ku rooyahay jiilka soo socda aan
wax oo aas ay wax ku sii dhistaan aan ugu dhamayn karnaa inaan ka sii fakarno waayo marka sabar badan baan looga baahan yahay waxaan hadal ku soo gunaanadayaa aad iyo aad fiiro ugu yeeshay shuruucda oo khaas ahaan u degsan shaqaalaha arrimahooda iyo meelaha aan taataabtay iyo meelo badan oo kale intaan isku soo noqono aan ka wada dooni doono haddii aan la yidhaahdo lagama maarmo magaciisa waa yani shaqaalaha waa lafdhabarta dhaqaalaha waa lafdhabarka dalka weeyaan shaqaalo la'aan wax shaqaynaya ma jirto sidaa daraaddeed ku soo dhowaada mar kale waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa aaraacdiina waxaan jeclahay in si maaragta niyad furan ayadoo aan kala baqin aan jirin ayadoo aan ilaalinayno asluubta ayaa markaa waa inoo furan yahay hadalkeena wassalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة بسمع مدحونا قدومي برلمان كل عام فيلي أنا سياد أول ركتين وجدد برنامج كاي سدو قدوميه تلوين كينا حل كان أهمية أسيانا يونو ذيك اللي جست أفكار تعد قبطان سدو كانوا وديار قوي هاي وحي سؤال أو عد قبطان نتوسو ويديسان runtii haddaan xuso dhinacyada meeshaan ku sugan oo barnaamijka qayb galaya waxay ka kala socdaan mudan gudoomiye kalluumaysatada macallimiinta gaadiidka hoteelada farshaxanka ama alindiga beeraleyda dabcan iyo sidoo kale xubno kala badan ayagana kulli dhinac ayaan xusi doonaa kulli waa wada gaarsiinayna hadalka si dhinac walba waxa ay qabaan ay soo gudbistaan laakiin tan gudagelin barnaamijkan waxaan jeclahay inaan xusiyo waxa abaabulkiisa gacan xoog leh ka geystay soo qaban qaabiyay istaga ururada shaqaalaha Soomaaliyeed oo urur ay ku midaysan yihiin dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed Somali Congress of Trade Unions anu yariya gudoomiyaha ururkan ugu horeyn Maxamed Cusmaan Xaaji si uu bal isaguna si kooban oo halkan hadal uga jeediyay kadibna su'aalaheena afkaarahena aan geli doonaa insha Allah bismillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وهرين وحان ربائنا أمهد عليه كسمها مدحوينها أهنا قدوميها بارلمانكا مدني بروفيسور محمد عثمان جواري oo ah mas'uulka suurta galiyay in shaqaalaha qaybahooda kala duwan ay maanta yimaadaan howlka baarlamaanka asigoo diyaar u ah in uu dhageysto aaraa'da iyo fakarka ay qabaan shaqaalaha Soomaaliyeed iyo dhibaatada iyo horumarka ay shaqaalaha Soomaaliyeed rabaan inay dalka gaarsiiyaan waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha in uu ka dhawaajiyay in waxa baahida looga bixi karaa ay tahay xooga shaqaalaha Soomaaliyeed inaysan baahi ama shisheeye waxa uu nasiyay aysan waxba noogu tareenin waxa aan rabnaana waxay tahay waxaan haysanaa khayraad fara badan oo dalkeena dhulka iyo badaba leh waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano soo saarno waxa dalkeena ku jiro gacmaheenana aan uga baxna baahida waxaa la dhahay biyo sacbadaada looga dhargaa marka waxaan rabnaa inaan gacmaheena uga dharagno biyaha baahidana uga baxno waxaan rabaa in halkan maanta ka sheego shaqaalaha oo dhan ayagoo joogan gudoomiyahana aan rabo inuu maqlo shaqaalaha Soomaaliyeed inay u diyaar garoobeen in ay dalka dhibaatada haysata 20 sano ku jirta inay ka bixiyaan door lama iloobaan ay ka qaataan dib u dhiska dalkan waxaa lagu dhisay iska wax u qabso shaqaalahana inay iskood wax u qabsadaan aanay shisheeyana tuugin gacmahooda wax kala soo baxaan ilaahay subhanahu rasuulka kaleey salaatu wasalaam xadiiskiisa oo maanta hadda gudoomiyaha ka dhawaajiyo wuxuu ahaa uqtul ajira ajrahu qabla an yajifa arqahu qofka xuquuq qofka loo shaqeeyo waa inuu ogaadaa qofka u shaqeeyo intuusan dhididkiisa qalalin inuu xaqiisa siiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha xoghayaanada baarlamaanka xildhibaanada kale sharafta leh meesha fadhiyo ururada shaqaalaha kala gidsan bahda saxaafadda waxaan rabaa kulligood inaan u mahad celiyo maanta isku xil saaray inay soo dhaweeyaan shaqaalaha aragtidooda dhageystaan bulshada Soomaaliyeedna gaarsiiyaan aragtida ay shaqaalaha qabaan
waxaan rabaa Somali Congress of Trade Union oo urur ay ku mideyseen ilaa 8 urur waxay leeyihiin ahdaaf objectives ama wax la yiraahdo yool iyo waxay leeyihiin waxaan rabaa inaan sheego qaar ka mid ah ahdaafta iyo objectiveska iyo missionka wax ay leeyihiin ugu horeyn aragtida fog ee SCTU ama visionka ururada isku tagay shaqaalaha Soomaaliyeed waa helidda bulsho cadaalad ku dhisan cadaaladaas oo ka imaanaysa aqoonsiga iyo xaqiijinta xuquuqda shaqaalaha dhammaan muwaadiniinta si loo helo nolol dhan kasta ka wanaagsan macna ahaan iyo maada ahaan yoolka ama missionka Somali Congress of Trade Union ama isu taga ururada shaqaalaha Soomaaliyeed waxa weeye u halgamida gaaridda horumar dhaqaale mid bulsheed kaas oo ku salaysan midnimo cadaalad agabka ama qalabka ugu weyn ee loo adeegsanayo xaqiijinta yoolkaas waa ururada isu taga shaqaalaha Soomaaliyeed ahdaafta ama objectiveska waxaan ku soo koobi doonaa ilaa 4 qodob waa sare u qaadida habka shaqo qorista ama shaqo xulashada shaqaalaha labo oo hay'adaha kala duwan ee dalka labo waa horumarinta xiriirka isu taga ururada shaqaalaha iyo shacabka xaqiijinta maaliyad howlfulineed oo hufan oo isu taga ururada shaqaalaha Soomaaliyeed leeyihiin abuuridda aragti gundhig u noqota xaqiijinta aragtida fog ee isu taga ururada shaqaalaha Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay shaqaalaha helaan shaqaalaha Soomaaliyeed ilaa waxa ku soo koobna 7 qodob 1 caafimaad iyo shaqo badbaado leh xaqsiin iyo daryeel waa mushaar ay ku noolaan karaan dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dalka shaqo sharaf leh saacadaha boon shaqada in la qabtana leh mushaar la bixiyo fasaxyada gooniga ah iyo kuwa caadiga ah waxaa jirta qofka shaqaalaha inuu heli karo isbuuci hal maalmood oo fasax sida jimcihi waxaana ognahay shaqaale far badan inaysan helin hal maalin xataa week ayna helin sanadkii bil fasax waxaan rabnaa inay baarlamaankani u noqoto inay sameeyaan sharcigii uu gudoomiyaha sheegay waxaan horta ugu mahad celinayaa marka hore gudoomiyaha baarlamaanka markii baarlamaanka la dhaarinayo waxaan ka codsanay 2 qodob oo ah in xeerkii 1972 oo shaqaalaha uu lahaa ugu dambeeyay iyo guddi shaqaale labadaba la sameeyo waxaan marka koowaad shaqaalaha magacooda aan ku hadlayo gudoomiyaha iyo baarlamaanka uga mahad celinayaa guddigii shaqaalaha la sameeyay waxaa la sameeyay guddi oo arrimo bulshood oo ay shaqaalaha qayb ka yihiin waxaan rajayn doonaa gudoomiyaha in lagu sii dhawaaqi doono qaybta shaqaalaha oo guddiga leeyahay waxaan rabaa xuquuqda abaabulidda shaqaalaha sidii loo qaadi lahaa dhaqdhaqaaq midaysan taas oo ay ka mid yihiin shaqo joojin iyo isku duubnaan waxaan rabnaa xuquuqda ay shaqaaluhu u leeyihiin inay si wadajir ah isu abaabuli karaan iyagoo wax dhibaato ah ama handadaad ah loo geysanin sharcigana lagu handadeen waa mahadsantihiin gudoomiye iyo gudoomiye shaqaale kulli mahadsantihiin aad u mahadsan yahay maxamed cusmaan xaaji gudoomiyaha SCTU oo ah urur ay ku mideyseen ururada shaqaalaha Soomaaliyeed barnaamijka mar guud galeyna dhammaan magacyadiisa soo diiwaan galiyay waxaan aad u jeclahay hadii fursad aan isla ilaalino inaan wada gaari doono oo inta magaca noo qaran fursad ay heli doonaan halka soo istaagaan gudoomiyaha uu nood gareysana ama uu qoran doona wax walba aad sheegto haday fikirta aad u jeediso ama hadii su'aal aad weydiiso kadib hal mar kaaga jawaaba 4 qofood markay isku xigsadaan kadib gudoomiyaha siinayna qof walba soo istaagayna ku xisaabtamo in dad badan ay ka dambeeyaan oo sida isaga hadda uu hadlaayo ay u jecel yihiin inay fikir iyo su'aal waxay qabaan u soo gudbistaan waxaan ku bilaabayaa ugu horeen u yeerayaa kalluumaystada waxaan uga wacayaa Professor Hussein Bile Ahmed bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa thanaa'u lillahi wa shukru lillahi wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wal anbiya amma ba'd assalamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله تعالى فوقكم وبركاته. وحي أن أران لهابا وحا آد ويري رئيس البرلمان يو محمد عثمان وحا كليا أن كوكوردنا يا وحي تهي أنا وحنا يكلو ميستو وأنا سكوبيا أدان يكتر هيابنا يا سكوبيا أنا وحنا يكلو ميستو بدأنا كلو مسنا
kalluumaysigu waa hawl aada u dheer qofku markuu doonayo inuu kalluumaysi aado wuxuu u baahan yahay inuu helo qalabkii uu ku soo kalluumaysan lahaa iyo gaadiidkii uu ku kalluumaysan lahaa iyo wixii uu isku badbaadin lahaa intaas isaga uu kalluumaysigu ku maqan yahay waa marka ugu horeysa saddexdaas shay qofka hadduusan helin inta uu biyihii weynaa jiiro oo gudahooda tago ma soo kalluumaysan karo saddexdaa qodob waxaa la isku yidhaahdaa kuu sahli ku badbaadiye iyo ku kalluumeeye kuu sahla waa doon ama waa laash ama waa huri ama waa badan ama waa markab inta kale ma qabno waxaan qabnaa huri iyo laash ku kalluumeeye waa qalabka aada badda dhiganayso sida shabaagaha waafi qabadka ah kuwa libaaxa lagu ugaarsado kuwa lagu ugaarsado aragoostada kuwa lagu ugaarsado kalluunka iyo kuwa lagu ugaarsado kalluunka guuraaga ah waa jilbaha oo loo qaybiyo laba qaybood qayb la yidhaahdo trowling iyo qayb la yidhahdo trawling waa cilimo ama gargoor ama sanduuq oo lasoo dhigto badda intaasi waa qalabka kuu kalluumeeya iyo badbaadada si aad badbaado ugu tagto badbaado aad ugu timaado inaad biyo qaadato inaad toosh mindi iyo bulleerta la rido markii aada go-danto intaa aan ka shanqarinayo oo dhan haddaanu nahay annaga kalluumaysatada soomaaliyeed ma haysano mana heli karno waxaa noo diidana waxay tahay tacabkayaga aan badda ka soo helno oo yar ayaa markaanu suuqa keenno waxaanu weynaa horta kow suuqaan ku iibsan lahay waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynaya haddaan kalluumaysasan lahay aad baan u riixanahay nala soo dhaweey wasalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركبنا حق معلمين تايرو يا ريا نورتو محمد عدو بسم الله الرحمن الرحيم كوسمة مدحوينها أنا رئيس البرلمانك مدن جواري حكاينتيسا مرتضى حلبانة غيرت شرفت له دمان حرف الليل شغالوينها الصوماليات كل واحد سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ku hadlaya magaca ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed meesha isugu yimid ahna xubin kamid ah ururka shaqaalaha Soomaaliyeed waxaan kamid ahay oo u hadlaya xubin kamid ah shaqaalaha oo macallimiinta Soomaaliyeed waa sida uu ka dhawaajiyay professorka shumac la iftiinsado guri mugda markaa shumac dhigto oo iftiinsatid waa lagu meel maraa laakiin asaga aakhirkii wuu dhamaadaa 23 sano ee burburka wadanka ka jiray macallimiinta Soomaaliyeed roolka ay ku lahaayeen wax la xaqiri kara ma aha waxa anaga ma ahayn qolyaha siyaasadda isku haysto inta hubeysan iyo inta siyaasadda uu dalayso shaqo kuma lahayn waxaan ahayn urur badbaadiye ah waxaan wadanay boorkeena safiitada ah iyo jeesada hubkeena jeesadu ahaa waraadeena waxay ahayd tacliin iyo toosin caruurta iyo hooyooyinka iyo maatada dhinacay u cararaan safiitada iyo jeesadan ka daba wadanay qor dhig yeel aan dhahayn inta yaree dhaqdhaqaaqa iftiinka magaalada dhalinyarada ordayso waxaa lagu mahadinaa ilaahay ka sokoow waa inuu hoosta ka xariiqa mudane jawaari macallimiinta Soomaaliyeed oo dhibkaas dhabarka u ridatay ilmaha Soomaaliyeed marna aan ka dhuuman waa la dareemi karaa aqoon la'aan waa guri mugdi ah marka macallimiinta Soomaaliyeed gacan laaban lahayn 23 sano
meeshaas culays nagu soo wajahan u ahaan lahaa marka annaga kaalinteen roolkeen waa ka soo baxnay haddana waa taageersanahay dowladda Soomaaliyeed waxaan mar labaad ku faraxsanahay oo aad u salaamayaa iyo mar saddexaadba professorka oo fursad noo siiyay weligeena aanan arag madaxdeena qaranka oo annagana waxna weydiisata waxaan u sheegnay ayadana nooga jawaabto isfahankaasaan camala waa rajo noo iftiintay waana soo dhaweynaynaa roolka aan ku lahayna saan awal bulshada waa la jibaaynaa insha Allah مرة إن هذا البدن مشكلة هذا ولو لقى قدام به السلام عليكم. مع النورت هذا وما سنتهاي هذا نوعهم يا ريادك جديد كعبد يوسف أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كسمها مدحوينها أهنا قدوميها برلمانك مرتدى شرفت له حلبان هذا لما شغالها صوماليات وحنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام أنا أقول الله ما عشقالها قيبت جديدك وحنا هنبو جديد كي قيبت إسجارسين تقيب كمية الحمد لله لبعض بدنه نهيستي إلهي ونوفذي وحنا ما هذين إننا إلهي ما هذا إسكاله بعد إله دولتي دوان لديسي أو نقلي جوجو قدومي برلمانك أهنا قدومي مدحوينها قسمة مدحوينها وحكم إذا هاي دباتوين كاسباروين كمجال دوبناي وحياة يرر واسكجلان لكن أنت بدن واكريسن مو أنا قدومي أهنا قسمة مدحوينها وحنكوسو قدومينا waxaa la yiri waxaan xumaha been lagu dhaqmayaa iyadoo la tixgelinayo qodob xeerkii lixdamaadkii waxaan naga taabanaynaa aan haddaan nahay gaadiidka leysinka iyo buugga inta hadda aan ka xasuusanno leysinka iyo buuggii hore waxaa la yiri ma la rabo darawaliintu waxay wateen leysimo way hore u goosteen waxaa la yiri leysinka inta dhiga lama rabo waxaynu u qabatay kulley waxaan ka sugaynaa madaxda sababtoo ah dukumenti buugaagtii waa la isticmaalaa dukumentiyadii guryaha waa la isticmaalaa oo dowladda hore ah laakiin buuggii iyo leysinkii waa la laabo waxaa kaloo jirto leysinkii iyo buuggiina waxaa laga dhigay lacag aan naqaba karin leysinka sugunta garaadaha ah $70 ka kaca darawalkaanu bishii shaqada ugu badan la qabta dekedan waaye bishii wuxuu soo qaadaa hal biyaajo $700 qaataa reerkii iyo caafimaad iyo waxba laga sugaa $70 waa laga rabaa buugga $250 gaariga weyn gaariga yar $150 lacagtaasu kulley baarlamaanka ma fariisan oo mid la sharciyey u maleemayna inay tahay waayo waa la qiimeyn lahaa kulley taas waxaan ka sugaynaa shacabka madaxdiisaan ka sugaynaa teeda kale waddankan waxaa imaaday shirkado iyo shaqaalo hor leh shirkadaha yimid shirkadahaas imaanaya qandaraaska ama darawalnimada inta qof loo dhiibo oo qiimo gooni kula heshiiyo iyo darawalkiina wuxuu raba siiyaa ayadaasna in fiiro gaar loo yeeshaa rabnaa annagu waxaan nahay shaqaale isku xiran haddaan nahay darawaliintii ama gaadiidkii 22 sano haddii meel gobol qof wax looga hadleeyo ama isbaar loo dhigto gobolkiisa inta tagu gaari dhacay gaari uu dhaco 22 sano waxaa ka doonayay gaadiidley ayada u soo celinaysay qabiil ma lahayn hadda waddanka shirkadaha yimid nima shaqa shirkad inta magac soo sheegto shirkad soo samaysanaya shirkadii waxay rabtaa dad khaas ah oo u shaqeeyo raba inuu qoro waxaan rabnaa in la ilaaliyo midnimada shaqaalaha hawshaas ayada ah fiiro gaar loo yeeshaa rabnaa
waxaan u mahadcelinayaa mar labaad gudoomiyihii baarlamaanka noo siiyey fursadda inaan hor istaagno la hadalno shicibka hortiisa mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinaynaa dowladihii hore haddayna wacaan waxayna weydii jireen lacag laidinku kordhinayaa lacaga laidinka rabaa tarasmataraalana la weydiiya hadda tarasmataraaluhu waxaan waayeesaa u fahansanna annaga haddaa gaadiidnahay waa waddadii lacagta lagu toosinaya waddana ma hayno marka mar labaad iyo mar saddexaad adinkoo iga raalliya waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha baarlamaanka in dalbay sahlay inuu shacabkiis arko marka insha Allah waa soo gaabanaya assalaamu calaykum way aad u mahadsan yahay Cabdi Yuusuf waa ilaa saddex qofood ah hal qofood afraad aan ku direynaa kadib gudoomiyahan siinayna si aragtiyada inta laga soo jeeday maanta su'aalo uma badna aragti un baa jirta laakiin aragtidaasna gudoomiyaha uu ka jawaabi doonaa xagga hoteelada xariir mahdi jaamac waad salaamantihiin marka hore mahadoo dhan waxaa leh mawlihiina uumay mar labaadna waxaa leh madaxdii dalkeenna ugu sarreysay oo maanta fursad inoo siisay in fikirkeenna ay dhegaysato ahna kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka professor Jawaahiri aad iyo aad baad u mahadsantay baan ku leeyahay fursadan qaaliga ah ee aad ra'yiga nagaga qaadayso intaa haddii laga gudbo anigoo ku hadlaya magaca ururka hoteelada annagu waxaanu nahay meelaha laga milicsan karo muraayadaha dalka waayo dalka dadka soo degaya hadday noqdaan ajnabi hadday noqdaan madaxda laftarkeeda dalkeena joogta dadka u shaqeeya waa annaga waxaanu nahay qayb aad iyo aad u muhiima haddaba dhibaatooyin badan baana haysta oo ay ka mid yihiin waxaad arkaysaa dhalinyaradii ka shaqaynaysay ee hoteelada oo bilaa uniform taasi maxay sababi kartaa waxay sababi kartaa waxaad arkaysaa nin ama cadaana ama ajnabiya oo la yiri u adeeg inaan xitaa uniform lahayn hagaagsan oo qaabaysnaa oo waa maxay taas waxa ka timid ninkan mulkiilaha meesha waxaanu aqoonba u lahayn dadkan meesha fadhiya iyo sawirka uu bixinayo qofkan yar uu diraya ayaana isba lahayn kow markaa waxaan leenahay laba dhibaato kala haysata waxa jira shaqaalaha hoteelada qaar baa waxay shaqeeyaan ugu yaraan 15 saacadood ama 14 saacadood قال هوري يجي دبابا إذا كفست حبابة ملاليد يجينو مال بابا قصي ساري أنا ما بليه فسح والله إذا هو تلاو فسح حبابة مليه مرة إذا كمان أنت فسح تينا أنا بابا نقصر واحد عما أنا هيا نقصر على هرتي كو فكر كان وحوين هرتي مرون بي خيارات نبى وحول مرون بي خيارات قارع يكون مودا واحد رادين سنة ربي وقصية maanta ra'yigan laynaga qaadaya waxa uu aan u arkaa inuu mid dhali doono annaga waxaan ka cabanaynaa qaybta waqtiga iyo waxaan u leenahay dawladda adiga ka mas'uul dadka ajnabigeed keenaysa dalka dadka hoteelada ka shaqeynaya in la dhiso nadaafadooda iyo maxay uniformkooda si aan markay dibadii dib ugu laabtaan aanay sawir gabgaba meesha inooga geynin waa shaqada aad u mahadsan yahay xariir mahdi jaamac waxaan filayaa ilaa 4 qofood oo dhinacyo kala duwan ka socota hadashay afkaar kala duwan meeshan laga soo jeediyay marka dabcan kusimaha madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka waa uu qortay isagana u deenaynaa jawaabta markan madaxweynaha ku soo dhaw aad aan ugu faraxsanahay si saraaxad leh aad ku soo jeediseen araadiina waa arrimaha aan u baahanahay runtii in sidaa oo kale iyo weli si kasii fasaaxad badan aad noogu soo jeedisaan si aan arrintaasi waxqabadkeeda aan uga howlgalno
محمد عثمان wuxuu ka hadlay arrimo badan aan ka soo qaado xagga koodisha oo 1972 in sida ugu dhaqsaha badan oo dib u eegis lagu sameeyo ayuu soo jeediyay waa arrin aan aad u tixgelin doono haddii aan yiraahdo waxaa jira kalfadhiga hadda soo socda ee baarlamaanka barnaamijka hadda aan qabanqaabadeeda ku jirno aan qorayn 4 bilood soo socota inaan ku shaqeyno waxaa ka mid ah waa maxay shuruucda horetilinta loo baahan yahay in baarlamaanka si degdeg ah uu ansixiyo xukuumaddana ay keento marka waan ku dadaali doonaa in sharcigaas dib u eegistiisii aan ku darno horetilinta dhowr qof ka hadashay laakiin qodobka aan soo hormariyo waxay ku saabsan tahay shaqo qorista waxay u baahan tahay cadaalad in loo tartamo in si cadaalad ah dadka loo magiciisiyo inaan 4.5 loo fiirinin in xirfad iyo aqoonta iyo kartida qofka lagu qaato marka inta uu qalmana mushaarkiisa lagu siiyo waa laga maarmaan min shaqo qorista ilaa mushaar goynta ilaa iyo magiciisi xiriirkii shaqada oo wanaagsanaa oo u dhaxayn karay loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha waa laga maarmaan sidoo kale arrinta kalluumaysiga oo professor Bili Axmed uu ka hadlay waa aydan arrin muhiim ah baddaasi marka midda ugu weyn waxa weeye ka sii weyn middaas oo dareenka baarlamaanka uu yahay dalkan oo leh 3,300 kilomitir ka badan bad xeeb ah oo haddana aan jirin jaamacadana aan ku jirin weli culumtii oo yani lagu baranayay badda aan jirin waa ceyb arrintaas waxa weeye arrin oo laga maarmaan ah in waxbarashada jaamacadaha iyo haddii la kooroon yahay macaahidka oo khayraadka badda looga faa'iideysanayo in ay ku soo darsoomaan waa laga maarmaan avokaatyo badan waa qabnaa avokaato yani waxa culumtii ugu sahlneed baa la doortay waa fiican tahay kulligooda in siyaasi international waxaas lagu barto laakiin 3,300 kilomitir oo bad ah cid la waa yar tahay in haddana jaamacadayni waxbarashadeena ay ka maqan tahay waa wax aan loo dulqaadan karin marka jiilka soo socda waa in martaa tacliinta ayada la baro kalluumaysi kaliya ee badda sida ugu ballaaran loo ka faa'iideysan karo oo dhan in la sameeyo dhibaatadan yaryar oo kalluumaystada haystan waa laga maarmaan tixgelinteeda in la siiyo si oo si tartiib looga baxo nuurto oo ka hadlaysay macallimiinta magaca ururka macallimiinta macallinku waa yani waa asaasaha aduudka horseedka maskaxda ifka ummadda weeye bal xusuuso xoogaa dib usu noqo markaad dareemo macallinka ugu horreeyay oo gacantaada qabtay alif ba sida loo qoray ku baray haddaa xusuusato maanta waxaad qorayso iyo maalintaasi isu fiiri marka macallinka waxaan qiimihiisa la gudi karin waayeen qum lilmucallim في تفجير كاد المعلم أن يكون رسولا كاد المعلم أن يكون رسولا marka macallinka qiimihiisa laba gudi karo ammaan gaar ah ayaan u jeedinayaa dhammaan macallimiinta aan marna dalka ka bixin intoo xabad ay dhacayso buuq socda oo cayaalkeena wax sii baraya oo ku adkaysay ammaan gaar ah u jeedinayaa abaalkooda lama gudi karo allah u gudaya marka annaka mahad kaliyaan u jeedinaynaa iyo bogaadin cabdi yuusuf oo gaadiidka runtii arrimo oo aad u qoto dheer ayuu taabtay oo dareen shaqaale dareenka oo dadweynaha ay ku jiraan lacagyo la qaado aan baarlamaanka soo marin wadooyin aan jirin oo lacagteeda la qaado ilaa aakhiri laysamo oo martaa oo la yidhi hala joojiyo waa arrimo u baahan in martaa dib u baaris loo sameeyo waxaan ku dadaalayaa in wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda gaadiidka aan leeyahay inaan gaarsiiyo arrimahaasi sida ugu dhaqsaha badan ay dib u eegis ugu sameeyaan dokumenti oo horey u jiray يعني إن حديد دوكيومنتي اللي بدلها والله عصبوريسين كان نوعي هدي اللي بدلها النوع كله لكن ما بجرت الامتحان بقول لنا حاجة إسكاليك لما اللي كره هو هيسي هدي أي حكومة بدي شوف فونكي أما قابك هدو حانشاها أو بلاستيك اللي مثلا حاول أنت بلاستيك وسكب بحنا لكن ما عندي بلو اليوم مجرت لي هذا ما نشوفه سواء مرخاتي وقد أتكون لطيف مثلا أو وقد على الشرع كوني استقال بقول أنت صار لطيف haddii warqad laga dhigaayo hadduu warqad ahaa maalintii hore diiwaan uu ku jiray
maanta haddii balastic laga dhigayo balasticka unbaa qiimaheeda bixinayo adeegii ahaa laakiin maaha in la yidhahdo adiga maba jirto maba dhalan layma dhihi karo isu celinta baabuurta iyo waxa la dhacay iyo ururada la samaynayo walaalayaal waxaa jira wax walba in laga sugo xukuumadda ama dowladda maaha dowlad waxaa ah shacbiga iyo afgobka dowladdu waxa weeyaan adeegay samaysaa iyo nidaamka masalan waxaa igu maqaalaa baabuurayda oo meelo badan gobollada qaarkood waqooyi xamar meel kastaba ay jiraan waagii hore waxaa jiray wakaaladda caymiska haddii baabuurka uu shir galo qof ku dhaco caymiska ayaa la geyn jiray caymiska ayaa ka bixin jiray wixii kharaj baabuur kastana caymis baa la gelinayo waxaa laga qaadayay in baa laga qaadaya bil walba iska bixinaya 100 shilin waxay tahay ayuu iska dhiibay taa waxay ahayd dhammaanteen wixii gaadiidlay ah waa bixinaynay laakiin qofkii shir gala ayaa magaciisa shirkii meesha baabuurkii haddii loo sameynaya kii baabuurka ka jajabay iyo qofkii wax ku dhacay ka bixinaysa caymiskii ma jiro maxaa see lagu bixiyaa caymiska oo meesha ka baxay wuxuu sababayaa in qabiilka soo noolaado in oo dib loo noqdo yaa reerkaaga oo kula bixinayo qaaraan ku soo aruurinayo waxyaabaha la doonayna waxaa weeye in laga baxo arrimaha noocaas marka ururada qaarkood ee gaadiidayda waxaa igu maqaalaa inay samaysteen ayaga inay shalooka ahaan meeshii beshi wax isku aruuriyaan ku ridaan qofkii wax gaara inay maragtaa saa ku bixiyaan marka waa tallaabo habboon oo fiican la bilaabay taas oo kale waxa ay sii tari kartaa waxay sii noqon kartaa ay u tarmi kartaa in ay noqoto shirkad ay wada leeyihiin gaadiidleyda oo dhan ay noqon kartaa oo ay ku xalinayaan in gaadiidleyda aysan u noqonin qabiil ay horey uga sii socdaan oo weliba ay martaa ay noloshooda kusii badbaadsadaan marka waxyaabaha yar bilaabanayo waxaa laga dhigi karaa loo tabci karaa mid weyn marka taana fiiro u yeesha waa magiciisii arrin oo jirto weeyaan ururka hoteelada ay noo sheegeen in marta loo shaqeeyaasha hoteelada iskale ay xoogaa fahma darro hayso marka fahma darradaas in laga bixiyo waa laga maarmaan lidaado in marta xoogaa nadaafadii iyo marta bilicsamadii iyo in magacii Soomaali ay ka tarjumayaan in loo sheego xoogaa shilimaadka aad dhabeelayso heedha waxaad dhaawac gaarsinaysaa dhammaan magacyada in loo sheego waa laga maarmaan iyo hanuunin loo sameeyo waa fiican tahay laakiin waxaan ku tali lahaa urur yani shaqaalaha hoteelka laftirkooda intay fariistaan isbuucii mar intay fariistaan maxaa noo danaa waxyaala ay isku gaaraan ilaa loo shaqeeyo kaale waxbaan kuu sheegaya hoteelka halkaa nooga hagaaji halkaa samee adina waa kuu fiicanta dadka qaarkood ku iman maayaan haddii ay arkaan magiciisii maradeena oo dhareer fuulo ama sugo ku daadsan ama noocaas in laftirkiisa loo sheego xoogaa lacagta uu gelinaya inay keeni doonto lacag badan lacag bay jecel yihiin ayaga intaa laga sameeyo runtii waan qortay inta oo aad soo jeediseen waxaan ku dadaalaynaa in ballan waxaa weeyaan in mid walba meeshii ay ku habboontahay aan gaarsiino wixii shuruucan annaka aan la herayna wixii maaragtaa ka baxsan oo xukuumadda aan wasaaradda ku habboon aan gaarsiinin haddii aan yidhahdo aad u mahadsan yahay ismaha madaxweynaha aan gudoomiyaha baarlamaanka dib aan isugu soo laabananaa marka halkii aan afkaarta ka wadeynaa dhanka farshaxanka ama alindiga ka sokow qofka ku hadlaya haddana waxaana la joogaa oo u hadli doona abwaan weyn oo si weyn u taqaanaan abwaanka Soomaaliyeed ahna fanaan ahna jila Maki Xaaji Banaadir waa jooga ay u dheer mugtay markina isgaabiyaan rabaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusimaha madaxweynaha ahna ra'iisul baarlamaanka professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo xildhibaanada la socota dhammaan saxafiyiinta iyo iskaashatooyinka iyo shaqaalaha aan dhaho dhammaantiin mar kale waxaan idinku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allah kusimaha madaxweynaha may dhahayo hadal ka soo gaabi waqtiyaan hayo
وكل عررينا ما يدهايو محايل أستغل نفتر كيس أركتدي ساجيرة دير وسوقلي وحاو سوقريت واشنطن حاو سوقلي مركا مكلا عررينا وشاكسنين إن شاء الله وحان ربا مركا وحان ربا هدي أن ريوهينو أن ربنو إن ريونو أن جعلسن إن ريونو كهور أن ريادينو إن هردنو أن ريادينو هرتا سي رياضة فاليتا يكون خطو وحان كبدا آذان أقول لك نقول قدوميها خطبة ديسا وحاكو جري شقالها وحاقها الله سبحانه وتعالى نرالي وكيهي لذيت كود أخوين إنه حقوق ضد هلال لكن وحان كتاوانا صاحب كي مر عنده بشو ما أنت تضبع قارب جنوين كي باور فولكا ولله إلا هذا marka taas waxay karu sheegaysaa ma dhahayo ka been sheegaysaana ma dhahayo laakiin cudur jira inuu yahay gudoomiyaha waa ku taawana waa u sheega waxa kaloo jira wardal lacag leeyahay ma dhismaayo dad bees haysan in ganyuunya ma ka baxayaan waalidiinta awlaadooda baahan inay ayaga la iska fikiraan waa laga fiican yahay nafteeda ma aan u socdaan ni sheega saxabkiin dhameesta saxabkiina ma aan u socdaan ni sheega sida aan ognahay wixii wax dhisi lahay way lacagta way qof soo hadal qaadimeedin ku jiro waayo dad waxa uu agtiibe wax walba u suusan yihiin waa iska faraxsantiin Soomaaliya nahay farxad ilaahan oo dhalibe waa u dhalanabe man naga fahmay problemkeena Soomaaliya unahay macna adkeysiga iyo geesinimada iyo adeega aan ku fiicanahay waxaan ka wadaa dollarkii markii daafka ku dhacay oo darbiyada ku dhacay balweentana ku khasashay ascaartii ya tiri marka shacabka saa u galay canaabkiisa ascaartii aday hunguriga shoora naftiis hunguriga way doqonta hadalkiisa ma maqlayso laakiin naftiisu waa shoora hunguri waxa sinimo go'anaka إلا وإلا والمباني ماشينا نفس أروحنا ماشينا عن تاكنا أوكي دولار كي واسطومي بالوينتي ماشي لي كوتا انتاي هنقولي سيدي سواي وتذلك دولة قدومي أقول شعبي قال لنا كم كسمة مدحوينا مقع زايد واي لكن قدومي أقول شعب قال لها شعبك وحي كهلاو إن أستوش السارتو أسايك قوانتاي وانا سارنا جواري وحنكو أوغاي بلنتيسا عصبة كوما بطنا وإذا دميسا أوكي خميستي ورا ومالينا قولا وزير ذا شيرا يفديستين علي رابيا عنك مخلا رابيا واي ما مجرين وزير ميلين قربرتاي قولا وزير شيرا يفديستين وافر عين نفتيد وحالي لعقتي دتكي واغنيو عوين سان واي غدي لو ساري او دغدغ وحالينايو سان واي كان واي غدي يا واي marka wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda okay labada oo tirtamooyin way okay oo suuqyada nu haasto okay ma diidani marka waxa isiri gudigan oo loo saari horta wasiirada iika kumanaan dollar may khaataan ana isweydii hooyaa xildhibaanada waxooda meel ay basaarteen waa sharciyeysteen marka wasiiradan marka wasiirne xildhibaan marka mushaar yaraa karee dadka iika waaba meeleysan yihiin war awlaadooda maxay wiilawooyin ana islaahay marka waxa loo baahan yahay waalidiinta iyaga inay iska fikirin oo awlaadooda ka fikiraan mudana gudoomiye mudana ku si madaxweyne beledka beesa ma taalo beesoo la helinne wax noo dhismaay diinlee waa isku sheegi karnaa maanta dhan خديجة الأروسية شويس الله ونحرسته شعب قادر بغداد اسكو دوغنياي وكشا كسكرنا لكن رنتالو باهي اللي انت قاعد نقولنا هرتو وحن كفانا خالي انا قاعد تيرك سمستي تايلاند معها فلبين معها واشنطن معها مودن الصين معها مودن الجرمن معها ومودن صوماليا كفانا دعكيوا اوكي واغي هوري
سيلو ديري قليو ان حرفت ليدا دولة وحي استعمالي جرتي دولة تنمعها مرحوم كي هاستا محمد سياد الله روح جست دولتي سواي كبعد كده وحلي له قلبي ديني فلاسي تبكل عليه قلبي مرك إلهي نفس أروكسو وعنك وذا أرض إذا وحي كبورين درك دلك إني خاتم مركي أو مناسبة الجيران درك دلك إني خاتم وعن استعمالنا خلب كلا من درك موازين ميلين برشي ماو تاجين هرديك تاليسمو والدريريس دوات تاجين والتاليسمو والفلات والعبر كلانسي ماو عنده ماش عنده دروف عنده مكود عبر كي ليبو عنكو درو وحيو دن آخاتو واسكو خاتي إلهي إيمان كان قليو أنا كمركا وحان نخوني داد سن عدينا يخانو أو اسكسو سعودة لي بس وابوجوني بسن عديبي أنك بوجوني مركا قدومي وحان كعوسنا أما كعوسنا متعلمين بدن دالك واكبوحان جامعيين تينا هدي انت جامعة كسو بعدي او بي اتش دي وطان شغل السيو كن إلام بخلا سوهري ولي او شغل عاني تعليمتي دور في عمك خاذني سنعاد او زولوسو او دمنوسو او تبعانك وإلا صنوليا وإلا صنوليا وإلا صنوليا او توبرو لسيا دت عن شخذا ابلو كسيني تسال عن فيري ما انت قد كاتا تكتك وعاركيسا اتسلاد وبجي دوس وعاركيسا عتن وقري عيلة تكيسا بي بي اي او جيل دا جيروس دخان كي اسلح كلي لو دي دخان على سكون فويا عنصر نخضو ان دعوين كعالم كمانتا iyo ahbaasha dhulkeena sababta tixda dheer iyo dhanbaalka ugu saleeyay waxay ahayd dhinacayga dhabii leegu yiqiinayo madhaafaanka ahaa ku dhisnaa waxsan sheega dhannaynan uga bayrin dhulkan aan lee xukumaaya dheeftiisa aan lee ku dhargaaya haddaan dhintoo dhafta waayo lee dhigay iilka xawaashina wiilkayga i dhaxlaaya nidaamidii ku dhisnaay tunisia waa ka dhammaaday masar waa ka dhammaaday libiya waa ka dhammaaday ivory coast waa ka dhammaaday yemanna waa ka dhammaaday madaxdii dhiigga dadkooda ku dhammaayay istaaga dhac iyo boobka kuna xayoosay doonaan u dhaqmaayo dirigtood kharsan waayey in waa dhinteen inna goordhow hog dheer bay ku dhaceen bin cali waa u dhammaatay baagbu waa u dhammaatay mubaarak waa u dhammaatay khadaafi waa u dhammaatay isaga waa la dilyaa buu dheer allah u naxariisto saalaxna waa u dhammaatay ragga kaloo weli dhiiran ammaanada loo wada dhiibtay isku sii dejinaayo dhiig daadinta iyo dad xasuuqa dhul burburinta iyo bulshaleynta dhexda u soo xiranaayo usoon leesku dhammaanin dhul mooye dad la weynin xilka inaan iska dhiibno waa waxaan dhici dooninayo dhimashaanka xignaa dhaarta waa fajinaayo fashilaad kama dheera waa ku soo dhow yihiin maalintay dhabta gaarto dhada liin lagu mayso dhiirnaanta guuldaradeeda ayagaa dhaxli doona dhadhamin doona kharaarko raggii dhigooda ahaa dhabahay mari doona dhambaalka insha allah waan soo dhammaystiriya hoos baan u dhaadhacayaa shakhsiga dhoofka ku waashay buufiska uu dhex jibaaxay dhalanteedka run mooday yurub yaa ku dhex geeya dhalasha maraykan ku siiya dharaad iyo haween ku qarwaayo waxaan dhahaa my friend ciidaada dhabne bacdaadana dhuuqso ku dheganaaw kutubkaaga ku dhiirnaaw hiddahaaga ku adadkaaw dhaqankaaga soomaali u dhashow magaceena hadha yalsan khoristiisa qabyada ka dhowr akhristiisana shaqal dheerka u dhaaf tilmaanta habkay ku dhisneed oy ku dhaahirsaneed oy ku dhowrsaneed abidkeeda adoon dhaawac u geysan waxban aan u dhimaynin fadlan sideed ku dhaaf ha noqon dhoohana ciidda
u dhashay oo mudacaayo iyo dhiiglaaba axwaasha dhuunta lee ka maqlaayo dhagaha dhoob laga saaray dhibaata uu rabbi keenay ha ku fuquuqin dhulkaaga qadar wixii ku dhaceen oo allah agtiis ka dhignayna ha ku dhaliili dadkaaga soomaalida dhurwaa ku sheegin iyo dhiigi cabyaal ilan waa dhalateene soo dhaweysashadooda iyo dhaxjoogooda ha quursan ilan kaama dhacaane taas meesha aan ku dhaafo hadda koor waxaa dhacday waa dhamaystiraa iska adinka saxabka wir saxabii maan nidhooya ay dhamaystirta ba lama inta وصعبية هذه تربينا صعبيننا لكن حرة ليه ما أنت قفكي وحلو شيء لهاي نجي وحلو شو لهاي إندي وحلو تسي لهاي واتن الحمد لله واتن إلا السلام عليكم وعليكم السلام آيس بهش سبستي good morning يا وحسين بيسوع ونكسن كتوتي والسلامتين يسلا هاي نصوري بيكو عودين سنة يا أف باترين سمع يا رجال اسكو خلاف السياسة سولك بفريريدا $100 كشكتي أو يري هتوسن إسينين سوبا كوير ريا اللهم نجنا سر أبراك كتوشي كوين سر أبراك كتوشي سقف كأقول كوسن كبستولة كساري سدحنا وقت دكتوري صورة مشارو دربحدي صور مشارو دربحدي سونكر أبون أفتوت سوغا بريس العلودي باستا روت السلوكتي سخار وحسين بيري بستيك واسقجان عنجيري واسد عولي موفن واسهري موفنا واسهري عمبول دانك سلام واكد يدي سميت وسلامتين كل جيل ما شاء الله اسكوزي هرت إلهي أنا وضع فيه مدن قدومية فانك يسوغانتنا لين عبد كتهي وانكوتريننا وكوترسنينا هدي او لعل ان كستير ان او تونرك ايغا فكتي مدن قدوميه هل يقرا لي هذا له عليكم احسن دمانتين هاي اوكي ادي هذا ما تي ابوان مكي حاج بنادر مركن وقتنا ابو نوهايا runtii dadkii soo qorayna waxaan filayaa inta ugu badan dadkii waa isku soo dhoornayba waxsaas hadda nooma dhimana xagga beeraleyda aan ku soo qatimayaa sababtoo ah waqtiga wax badan noo saamaxayn Dr. Sid Umar kadib gudoomiyaha u gudbin doona wixii xiritaana iyo talooyinka qaadaan laakiin Dr. Sid Umar oo beeraleyda hadlaya okay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam marka halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan mas'uuliyiinta dawladda gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan marti sharafka marka insha Allah taala aniga ka socda ururka shaqaalaha sectionka farmska beeraha ururka waxa loo soo gaabiyaa SCTU oo loo soo gaabiyaa Somali Congress of Trade Union marka ma sha Allah anaga ma filaynay for the past 20 years 20 sano ugu dambeeyay oo wax nagala weydiiya farmska beeraha marka waxaan rabaa inaan ka hadlo difficultieska ama problemska dhibaatooyinka ugu dambeeyay aan kala kulannay xagga beeraha marka it's a great opportunity for us to narrate about this kind of matter inaan ka hadalno arrintan fursad weyn ayay noo tahay marka waxyaabaha oo beeraha inaga haysta waxaa ka mid ah xagga seedska oo xagga mataqaana xubuubka ama xagga abuurka waxa loo yaqaano dhanka beeraha dhibaatada haysta ayaa ka mid ah because of waxay tahay dadkaas ku nool beeraha dad waxa waaye oo families ah waaye 20 sano waxa wada oo waxay u baahan yihiin imkaaniyad ah ama support ama taageero ah oo cisina ma aysan jirin ba laakiin maanta waxaan nasiib weyn ah warkaaliya dadkaas la waco iyo waxyaabaha ay ka tabanayaan ama waxyaabaha ay sheeganayaan waxa laga weydiiyo marka mar labaad aga madcelinayna gudoomiyaha baarlamaanka marka dhibaatada haysta waxa ka mid ah xagga xubuubka xagga abuurka hadii abuur la waayo those people dadkaasi awood uma laha inay wax ay soo saaraanba ee ummadaasna ay ka faa'iideysato ummadan kale iyadana degan urban areas ka goobaha magaalada ay ka faa'iideystaan iyadana awood uma laha because of wixii la soo saar lahaa meesha ma yaalaanba okay dhibaatooyinka waxa ka mid ah xagga sanitationka ama xagga sanitizer nadaafada
ninkan beeraley waaye nin hadda oo base ahaan education ahaan ama tacliin ahaan ka dhisan maaha marka nadaafad darada waxyaaba ay keeni kartaa isaga ma qoosan karo oo ma fahmin karo because of waxa waaye cilmigii ama waxyaabihii uu ku dareemi lahaa ma haystaba xagga nadaafadda dhibaatada haystay ka mid tahay beeraleyda waxaa kaloo ka mid ah xagga riverska وبياش أيها كميدا مركي لجارو rain season حليدا روبات كمركي لجارو problem كا أما anxious كا ولا أول واحد تاي رب كمركو دو ويو مركو ربكو بلادو قفل بقى ماشي سكون هول situation كيسا عادي ما نروح وكجراء أنا stabilizer أنا حسنين مركا problem كاس مركو دعو بس كان بيرلي وأود ومالها وأرين أيكو شغالة هاي إني واحد كقابته دولة كجرت ودنك بس كان يجي قديم كاسين حاليا أود ومالها مركا ما شاء الله يجي إن شاء الله تعالى دولة عن كعسلنا أرين تنوع سيجان إن مركي دولة إذا كقاتن واحد decision كقاتن قواني كقاتن وإذا لا تعرف قصة قصة وحياة كلو كم يدي problems كا ومعنا ما تقانا كوب نبيرا وحكي يدي shelter كا حاجة هويكا shelter كا وقفك نلشي سماش أو بيس جوا هواي قفك دوسن هو يوصل لهن وعو ترى ما نلشي سوي ترى يسمعه قفك سواء وحياة problem كوكينا فيل كينا أما عذر كوكينا أما جريدة أما problems كا thinking so much وسمعنا وحياة ساكن ده قفك مركو يوصل هاي سنين وعدكته مركا جوري على هذا وعدك فكرة ساعة وجوري هذا وسعتها واسعة ليس لكن مركا ما أكتم هذا وميل هذا وسعتها هذا كسينين مركا ماشي أسيعني سادنا وجينا ونرش هذا نادي ودي بدنتاي هذا البروبلم إن شاء الله تعالى يدور تحت عصرنا حاجة شلتركه وحاجة هوجة إن حوجة كسر أنت تكسب اللي ده وحاجة لو رأينا إن كان الله سؤال تمرر بس ودينا حاجة education كا you see sometimes وعارك يسدد كبير اللي ده most of them كسب بلاو from childhood كسب بلاو عيالهم ويكدوا قوة يعني they never learn anything وإحنا ببرتان why is that إن شاء الله تعالى أنت تدور ده حوشة كنا أجينا إنه واحد كقبتان أوكي وحنا رأينا إن كان الله حاجة بيرها قلب كل وبايع يجيب من تسكا إمكانيات وحياة بيرد لو شغال ما أنا والبيان بكرة دي اللقاط معنا ميلا نفسه قلب كي لو شغال أيضا ما عندك كميتاي وحرم إن كان الله وحارك يسالباتك يسنود بيس وحارك ضد أو NGO ولا NGO وإيمان أيان ولو صبرنا commitment لو سمعنا بلان وحسب كو سمعنا لوليه دين ما لو صلا بنا الله عزيز لو صلا وعبال أو يديستي وأتعصتي ولو شيء feedback عن حواي إن هذا يستد result واي result دي ما يستد result وعن نتيجة يستد ماله هذا البروبلم واي مرك شاء الله تعالى مسؤولين دعك عصينا هذا كاس وضد مرك شاء الله تعالى برنامج كان برنامج مين هذا أنا وفرح سنة هاي مسؤولين تعدوا مسؤولين مرك شاء الله تعالى برنامج كان كذا حق عصينا دولة أي مسؤولين تا سدوا الأخصية بدن أو tangible له أو على طابن كرو إني وحاجة قبتنا الشغلة هيانا إلهي سبحانه وتعالى وفضله سيد عمر هذا ما تسي ساعة شكني وحنكون بلاتنا برنامج كديم سوق وجوي لكن مدن قدومية مركو جوري سيقار كم عدد كهذلي بحديب ودجان سؤاله أفكارتي هرمريان ويكلا قاعدين وسؤال بدن بمركز وشجعان وحنا عطسدين إن قف كم إذا سؤاله أنا أسوي الديوان هل كان يكسو جيسو هذه أنا أذكرته ويا محمد عثمان صوكب فضل هذه نقطة الأولى سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كسو كوبنا وحربا قدوميها أفر سؤال شن سؤال ودينا ويديو. سؤال شو هو الرئيس صورته وحنكون فرح سنة هاي مركي هو الرئيسي إن أن هذه دولة أما ورجيسكا أما ويب سايت كدولة أنكو أنا شغالة لصاعد سنة برلمان شغالة لو بهاي برلمان كربو وأنا هوري أدعين إن شغالها ضدك قرطاي أي قفية قانون أما إن أذكر إجازة جيران مركب محربة قدوميها برلمان كسوء الرالي إنا ويديو شغالي هوري برلمان كشقينا حكينا دي هوري وما شغالي هوري سيدي وحلاقيه لما شقادي كتجان وما شقادي ما لقى إريه مس حرفة كلا لويه لك محربة قدوميها إنا ويدي شغالي هوري برلمان ما دام أي وقت أذك صو شقيان هدي حتى أي شقادو دي أي سيدي الربيع هين سيد اللقوم هذي إنا أوغانو مدة لواد قدومية أو سؤال شكله وحيد قبلها كشقية جوابها الشقادة وحي فقوق كهلان مالها أي كشقيان أو حكم إذا قبلي إن أي أور أي لا هذا الشقادة اللوجا عيريو أما أي
mushaar ka yar midka raggaa lagu siiyo goobta maadaama ay marna ilmo dhaleen marna uur leedahay marka haddii sharciyadaas oo kale baarlamaanka ay rabaan inay wax ka qabtaan in gudoomiyaha iyo wax uu noo sheego waxaan kaloo rabaa su-aasha kale ee ururka shaqaalaha Soomaaliyeed Somali Congress of Trade Unions wuxuu rabaa inuu xubin ka noqdo ururada caalamiga sida East Africa Trade Union ama ITC International Trade Union Confederation ama OATO oo ah organization oo African Trade Union Unity oo la sheegay inay Soomaaliya ahayd raggii aasaasay Jawaarina uu ka mid yahay xubna uu yahay waxaan rabnaa ururkaas OATO taariikhdeeda iyo doorka Soomaaliya ee ku lahayd inuu gudoomiyaha noo iftiimiyo waxaan rabaa su-aasha kale ee gudoomiyaha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay lacagtii dalka way dhamaatay gudoomiye waxaana soo haray 1,000 shilin oo aan isleenahay in haddaba iyadaba ee dalka sii dhamaanays ay ku soo hartay kaliya lacagtii doolarka ahayd haddii baarlamaanku ama wasaaradda maaliyadda ama uu dowladda xog uu ka hayo sidii lacagtaan laga yeeli lahaana waan rabnaa gudoomiyaha inuu noo iftiimiyo waxaan rabaa intaas inaan kusoo koobo su-aalaha mahadsan aad u mahadsan maxamed ismaan xaaji wixii su-aalaha uu soo koobay marka talooyin way ka horeeyeen oo uu soo bilaabay abwaan maki xaaji iyo qof kale ku xigay marka waxaan siinayaa gudoomiyaha isagana noo soo xiraya shirka oo noo soo gunaanadaya markuu su-aalaha ka jawaabo kadib kelmadda uu kusoo gunaanadaya ay raacsanayaan soo dhow mudan gudoomiye mahadsanid jeeta aad iyo aad ay u fiican tahay fiirooyinka la dhigtay iyo talooyinka la soo jeediyey saraaxadana ay soo kordhaysaa mar walba waxaan rajeynaya inay sii korodho ay sii shafaafi ay noqoto daah furan oo layska yani layska shaafiyo maki xaaji banaadir ilaahay fasaaxad buu siiyey marka waxaan ka dhigi kara male laakiin arrinta aan rabay inaan maki ka codsado waxay tahay يعني waxbay ka fududahay runtii arrimaha hidde iyo dhaqan iyo soo jireen Soomaali ay leedahay ay ka mid tahay alindigii dharka la sameysanayo yani qof isku filaasho gaari weeyaan haddii qofka maradiisa uu sameysan karo alaabta uu tiriyo laakiin hal arrin baa ayaan kaa sugaya xaaji waxaa ka booday doolaab ma sheeginadi gudoomiyaha waa ii faa'iideeyey anna waa u faa'iideynaa waayo doolaabaas ii sheegay waa isu xasuusii ilaahan wax iloobaynin anna singamo aan ugu daraa isla tiile waaye singamo tiile waaye okay marka waxbuu ka fududyahay baan arrimahaas uu tiriyay dhan waa alaabtii iyo qalabkii farsamada alindiga iyo dharka lagu samaysan lahaa marka waa jirtaa in martaa loo baahay dharka oo dharka haddii la ku rooyahay dalka laga sameeyo la qaato laakiin hadda warshadii iyo alaabtii waa naga maqan tahay waxa ugu fudud uu sameyn kara maanta xaaji muxuu yahay oo anagoo dhan faa'iido noo ah inta alaab uu tirinayo inuu maanta sawirada waa saaran tahay hataa mobilka wax lagu sawiri karaa in arrintaas uu sawiro mid walba magaceeda ku hoos dhigo waxa ay taraysana lagu sameeyo bug yarna laga sameeyo si maragtaa markii oo xoogaa oo dhaqaalahayna uu soo kordho aan u sii fidin karno wixii kaalmaa la fidin jiray iyo dhiirigelintii dadka xirfadahooda iyo tababarkooda si ayna u dhumin hiddahaas iyo dhaqanka qof aan garanaynin taariikhdiisa ma garanayo cid uu yahay اللي ما يعرف تاريخه ما يعرف هويته marka waxa weeyaan taariikhda dhaqanka waxa hidaa waxa weeyaan waxyaabaha ku siiyo aniga marka aad ka jawaabayso aniga waxaan ahay su'aasha laga jawaabo mid ah arrinta ku gaarsinaysa waa aniga waxaan ahay Soomaali waxa ku gaarsinaya waa hidaha iyo dhaqankaaga Soomaalinimada aad ku dhagan tahay weeyaan marka taa daraadeed bal nagu kaalmee in marta aad ka howlgasho arrinta inaad bug yar ka samayso wixii oo aad u baahataan annaga inaan kugu kaalmeena jecel وأنا قدومي هذا أنا عقود وعضلاني أنا دبلنا قال كودا ونرك سمايو حاج بنادر محمد كيس روس هذه كلام وحي سمايان إن أنا قاعد نقشد أو سومالي أنا قاعد ألفني نقشد على سماسني دركي يا سماني دركي مركوب إنديا جارو أما هو جارو إندونيسيا وحالة سمينا إسلا فابريكا داني على حدا وحالة سو سمينا در وهالدين على خالد كرو dhinacna laga qaadi karin oo barka islaam Soomaalida ay taqaan marka dawladahaas mudana gudoomiyow anako reer tabareed oo naga taal oo tacbaan
inay faabrikooyinkan xadaan waa laga fiican yahay iikan iimaanka ilaahay ka qaadee adinkan inaa ilaahay ka qaadee adinkan inaa naga qabatin aad ugu dadaal waa salaamta baab hooqalkeen aqoon kala baxsiimadeena adduunka aanu nabad geliyo anakaas ay naqshateena waa aragteen maraykanka iyo shiinaha intaas milyan maxaa loo ganaahay macnaa waxay qaateen koobiyay qaateen ama qaanaan leeyahay annaka usi horta ma dhimanin mase waa noolnahay ma soo jeednaa mase waa hurdoonaa ma baahannahay mase waa dharganahay ma jiranahay mase caafimaada qabnaa salaam calaykum sidoo kale dhibaatooyin badan oo ka sheegay ama tilmaamo badan oo meelo badan wax laga qabanayo xagga beeraha iyo beeralayda sida fayadhowrka iyo abuurka iyo ilaa wixii la mid ah waa ayadana arrin meesha jirto oo laga maarmaan ah beeraha la'aan cunto la'aanta waxaa weeye ilaahay wuxuuna siiyey intaasoo milyan oo hektar oo u baahan keliya abuurku ridid in la dhabo u baahan waxna isaga baxaya marka taa ayadana waa arrimo aan fiiro u yeelanay haddii aan ku rueeyay shanta su'aal ama afarta su'aal oo soo hartay shaqaalihii hore ee baarlamaanka iyo shaqaalaha la qoray aad meesha aad ku aragteen websiteska waa jirtaa baarlamaanka wuxuu howlaha hadda baarlamaanka uu qabanayo markaan eegnay baaxadda ay yeelan doonto baarlamaankan oo hadda sanadkii ugu horreeyay nuskii sana ugu horreeyay soo shaqeeyey baaxadda shaqadiisa way ballaaranaysaa shaqaalihii hore baarlamaanka joogay cid la ruqseeyey ma jirto kulli waa joogaan cid aan ruqseynaynana ma jirto ciddii aan sharciyaysnayna waa sharciyaynana kuwii sharciga ahna sharcigooday ku joogayaan laakiin baaxadda shaqadeennaa ballaaratay tayada shaqada aan rabno baarlamaanka inuu soo saarana ugu ballaartay 40 qof baan hadda oo jaamiciyiin baan weydiisanay oo laga bandhigay dhammaan dalka oo dhan ilaa waqooyi ilaa puntland meel kasta waa laga dhigay mushkilada dan haysto waxaa weeyaan 40 qof oo rabnaa waxaa soo qoratay 850 arday jaamiciyiin ayaa soo qortay meesha aan ka rabno 40 inaan qoranno hase yeeshee waxaan ku tali doonaa ilaa 200 ugu horeysa bal in martaa ay wasaaradaha kale qaataan oo aan inta ugu badan la qaatay aan ku dadaalayna laakiin shaqaalihii hore waa joogaan ee baaxadda shaqada baarlamaanka ayaa korodhay saa daraaddeed waxaan u baahannahay shaqaalo badan kale oo aan tababar gelino kuwa hadda noo jooga iyo kuwa cusub la qoraayaba waxaan gelinaynaa kulligood 1 sano oo tababar ah sanad tababaray gelayaan si tayadooda kor loo soo qaado iyo anaga tayada yani lafdhabarka shaqada baarlamaanka waa shaqaalihiisa haddii shaqaalaha aan si fiican u shaqayn ama ay u tababarneen 15 guddi oo mid walba hawshiisa ay baaxad weyn tahay ay la shaqaynayaan ay u dheer tahay guddoonka shaqadiisa iyo shirka guud waxyaabaha ka soo baxaya marka shaqo yar ma aha maalin lana sanaayo aan jumco ahayn ma jirto sidii hore baarlamaanka shaqaynaya baarlamaanka uu shaqaynayaa 4 bilood oo shaqa laga rabaa in 2 bilood oo xuraansiiska ayuu aadaa sidaasaan ku shaqaynaynaa waa idinka 4 sano waa tiraadaan magaciisii ee baarlamaanka wax la tirinayo macna male baarlamaanka oo dhan waa 8 kal fadhi waa 8 kal fadhi min 4 bilood waa baarlamaanka lagu sheegayo dhan hal kal fadhi waa baxay kii labaad hadduu bilaabana waxaa baahan 7 kal fadhi kabacdi waa 4 sano waa dhamaatay shaqada taalana ciidaas ay ka badantay marka 4 sano wax dheer hamoodina hawsha taala hawl yar ma gabdhaha uurka leh iyo shaqadooda iyo xuquuqdooda waxaan maleynayaa inay aad uga caddahay heerka shaqada ay ku caddahay gabadha markii uurkeeda xaamilanimadeeda ay gaarto bisha 9aad waxay xaq u leedahay inay qaadato fasax dhalmo wax la yidhahdaa ku yaala marka taa in la tixgeliyo waay markii ay dhasho ka bacdina waxaa jirta fasax nuujinta ayaa jirta oo isagana sanad ah waa kala gedisan marka fasax dhalmada iyo fasax nuujinta fasax dhalmada waa gurigeedii joogtaa oo dhowr bilood weeyaan ilaa cunug uu kasoo kakanayo ilaa dhowr bilood ah ay jiraya gurigeeda lacagteeda ku qaadanaya laakiin kan nuujinta waa shaqaynaysaa waxay xaq u leedahay marka saacad ka bacdi inay soo gasho saacad ka horna inay baxdo shaqada ka baxdo yani meeshii haddii 7 galayeen shaqaalaha ayada 8 soo gelaysaa haddii 2 laga baxay ayada 1 bixisa si cunug ay u sii gaarto oo magaciisa laakiin mustaqbalka waxaa baroon idinka laftirkiin urur shaqaale ahaan inaad maaragtaa u halgantaan sidii goobta shaqada loogu sameyn lahaa meel caruurtana lagu hayo oo hooyadii markaa ay marba 10 daqiiqo tagto ay soo nuujin karto waayo caruurta nuujinta u roon
ومر هو مجلس وحق إليه وحق إليه آيات القرآن بقى أدو اللي مرتا صدم بلاد مركي وكيرا القرآن كم يعني سحويا إسلام تو حيكون لي كرتا الماضي أقويا نقول لي كربا لح بلاد هدي عنق لح بلاد وكل شيء وحق إلهي وكل هاي لبي توم بلاد إنه مرتا أفر لوات حله أفر لوات بلاد إن مرتين نوجسه وحاول مركي لح أفر لوات مركي أسكت تصدم بلاد القرآن كساس وشيء حدود سجال بلاد كل شيء ساس وسيكو أي سنة مركي نوجنت هو مهم عرفت عافي ماذا أجرى هو هي عافي ماذا أجرى وعن كنسر كان بلاين الشيء هو كوا كلا نوجنت كجوجيسي أريد أي صورة ده وحنا ما نعرف شيء أورك OATU Organization of African Trade Union Unity بالي هذا وهو أورك شغالها أفريقيا كأجوك فالأمر كلا تاريخ هذا يوديني سنة مش هنفرنا أورك كاسي وحلوة أبوري غوريا ماذا waxaa halkan lagu abuuray waxaa halkan isugu yeernay dhammaan wasiirada shaqada ee Afrikaanka ayaa halkan isugu yeernay waxaa kaloo meesha ka soo qayb galay ururada shaqaalaha ee Afrikaanka halkan gurigan golaha ummadda la yiraahdo golaha ummadda lagu shiray halkan ugu horeysay in la sameeyo laga sameeyo ururkaasi qofka ugu horeeyay oo xogeey guud ee ururka looga dhigay waxaa la yiraahdaa Dennis Akumu wuxuu ahaa nin Kenyan ah ilaa hadda inuu nool yahay u maleynaa كحجيك وحكايها جود وحها قف صومالي وحالي هذا علي إبراهيم محمد على السيارة الله يقارنا هذا وزير كيان ولينا صومالي لاند ميلا سودان جو على السيارة علي إبراهيم محمد أيه كحجين من نوضي فرق هذا وحها صديق لو قد أقرأ جانا مركوحة أوروبا بدنا جت الصومالي أي حسين شعبي كاني شعبي كان صومالي أنا أدمن وكسرنا الله كسكو شعبي وكسرنا واي كرتيب وليه كرتيب وليه ودبرن بفهمين كرتيب وليه على ملاك وجاري كان ماشي وراوي وجار أورك أواتو إذا كسمي أورك أفريكانك يود هذا الله يقارنه صومالي أساسي كتاعي أورك إسكاشي إسلام وفكرة صومالية عالم بميلاد بدن عن مرتاح قبل هدي الكورية هاي أفكار بدن عنك عند سنين ولا قدام بيا جرتا يعني ماشي عن كهر من أفريقيا ولقاها لتاجي ولا جاري كرا وحن أباهنا هاي كلنا إسكتوا بنانا وحن أباهنا إن مد أهانو عد كي مد أهاد السوق قلب في عنانو قش كان يزدل كان يسوق هاي بختي أنا عن كيلونه إن أن أجيسنه إن أن ذل كان وحنا قفصنا أنا يسي أنك قبل مدري نفسه عشانه إن أن أورن كنو أنا وحن أهاي صومالي إن ليه كنو ayaan u baahannahay marka waa la gaari karaa waxyaabo badan baan soo marnay waa ku kalsoonahay in shacbigan uu gaari karo meesha uu rabo midnimada aan adkayno aan isu caloolkiyowaano isximigan iyo wax dumiskan ku dheeraynayo taas yara aan dumiska aan ka horeyso dhisid iyo sabar aan gal lacagta dalka oo dhamaatay شيرين الصومالي أي كجيرة يعني شيرين ورقدي شيرين الصومالي وذل كلام هذا ورتوح على هالكر روا إن الأمان بورن بلارن عن أجيبيو قد كم يدا شغالة يا واد ومالين إنسان وحاول حمالي فردي يدك أكاول ليش لقى حجبيه أو عن أقولين دولار إنك قاتل وحي أقولي شيرين الصومالي إنك قاتل Soomaali nimadan waa mid ah inuu yaanu lacagteena raba dollarkaas ma rabo yani dollarkan waa wiix dawlad kale iskale anaka waxa dastuurkeena ku qoran in lacagteena ay tahay lacag shilin Soomaali waxa warbixin lagu siiyay meelo badan in kaawaleyda dhagax jibisa ayna qaadanayeen shilin Soomaali ayna qaadanayeen dollar ayna qaadanayeen waxaan ahayn shilin Soomaali marka iyo xamaaliyaalka oo furdada iyo xamaaliyaasha kale وأكو أمانة يهين إن يكون أتكيستان هولا دي حنتلو دمات كأي دماتي دمان دويتو وحن كود هذيني عم كدقي سنة والبحين أي سنة وزير العقد المالية iyo qorsheynta iyo gobernatoraha cusub ee bankiga loo magacaabay bankiga dhexe waa arrin ay ku jiraan arrintaas ay u xalin lahaayeen muddo qaadanaysa laakiin